marka laga hadlayo inaad ahaatid qof wax akhriskiisu uu xoogan yahay dadaal fara badan ugu jiro inuu wax akhristo marmarka qaar dad fara badan waa ay ku adag tahay inay taasi sameeyaan oo ay ahaadaan dad akhriskooda si joogto ah u wada hase yeeshee markaad doonayso inaad wax badan akhriso waxa ugu horeeya ee laga rabo ayaa ah inaad ilaaliso waqtigaaga waan ognahay nolosheena qaybo fara badan oo aad u muhiim ah ayaa laga rabaa inaanu waqtigeena ku maareeno hase yeeshee si nafsadaada waqti ku filan oo iyadu ay wax badan ku akhrin karto qodobka labaad ayaa ah kalsoonida waa shay lagama maarmaan ah oo nolosha u muhiim ah haddii aynan kalsooni jirinna ay waxyaabo fara badan lumayso haddii aad isku kalsoon tahay waxaad ahaanaysaa qof isagu wax allaalay wixii doono fahmi kara isla markaana akhrisan kara oo aan marnaba ka caajisaynin waxaa sidoo kale laga rabaa diyaar garow horta waxaan akhrinayo aniga maxaan ka faa'iidayaa sideese ku akhrinayaa jadwalka sidee u dejinayaa waxyaabahaas oo dhan inaad u diyaarisid oo aad waqtigana ku maareysid ayaa laga rabaa mar waliba diyaar garowgana isaguna waa muhiim qodobka inta badan dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee san badi fahamsaneen waxaa kamid ah fahamka isaguna waxa uu qayb ka yahay qodobada maanta aan idinku soo talagalay waa wada ognahay in markii wax la akhrinayo ama iskuul hala joogo ama heer jaamacad hala joogo in waxaad macalinka ku sharxayo ama aad adigu akhrisanayso inaad fahamtid in ay tahay waxyaabo muhiim ah hase yeeshee anagu inteena badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin kuwa iyagu wixii akhriya xifdiya oo aan faham badan ka haysanin isku day intaad wax akhrinaysid oo aad u fadhisid oo idin inaad wax badan aad ka fahamtid waxyaabaha aad akhrinaysid ciwaanka ama maadada oo idil intaas ayaan jeclaa maanta inaan ku soo gabagabeeyo waad mahadsantihiin walaalayaal sida quruxda badan ee aad mar waliba inoo dhiirigelinaysaan haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan ha ka hilmaamin inaad qayb ka noqotid asxaabta channelka ku xiran la wadaag saaxiibadaada gaarka ah si channelka uu hore ugu sii socdo isla markaana aynu ahaano dad waxyaabo fara badan kala faa'iideysta